أرى مركز شعبك يقبلونه أنا هالفرين هالكان عن قدره شعبك وحن وشيء هرتا نين جوري سهر فديو هدي لي راد نين أقل كي سهر فديو هدي لي راد جوري هذا مجلي كريتورته وحواي وشيء قف كأسكيل سكاد عنا يواي هالكان وحلي راد كونفور قلبين ديان كي يقبلونه حوستة الدولة كونفور قلبين وحمد حمينا عبد العزيز محمد لفت قرين أوامرتي سوحان هين وكشقينا هويرتي مجرو مدحونا عبد العزيز أسيجان أوامرتي سي لقادنا أو يقبلون الحصص مع ذا دقمني ولا من اسمه ذا أوامرتي هذا سلية وين وقعتان ذاتك يقبلون وحرنا مركب وركب بنت أو مالها لقيش شيء جاي عرجد يقبلون للدمنا سوق يقبلون للدمنا وحاسوا أسكت شيكو مدحونا عبد العزيز مات يقبلون وحواي أنت بدن وأسكت جنجلو حديار ويا إنه كان يسرق سياسي هذا حمر اسكت جوجنا وحبوا مقام كرو يقبلوا يحب هذا مشاريع كستود دولة جبلية كونفور قلبت كجرو ديانة أي معناها أي سيل حقه أي أهلان سلم ده دولة كونفور قلبت عبد العزيز محمد رسول قرأ إنه جارسيو هذه جلس مرها هذا ديانة يقبلون مرها المساجيو مرها إسبتالو مرها محلها هي جواه وحبر الشر أنت بمرها وكليتان وحرنا هذه جلس إلا جارسيو وحلو جارسين كرا مرك وده شقين waxaan markaa odayaasha aniga sida aan wanaaga aan u aqaano oo ku soo diyaanka yaqbireen inay ka shaqeeyaan nabadii ay ka shaqeyn jireen anagana ka dawlad ahaan diyaar u nahay in la shaqeyno waxaan rabaa markaa shacabka reer yaqbireen deegaankiina waa idin nabad anaga wax ina idin ku soo kordhino oo macnaha maxaan leeyahay horumar mooyee wax macnaha wax u dhimay deegaankaasi laga yaabo waxaan rabaa dawladdiina gacmo furan sidii maanta ay ku soo dhaweyseen إنا قاعد مفروض كوسد ويسان عيال كير ولا لها مركي اللي يسوى مجاعاوي أفرع 9 وحواي فرينا ودراي وأنا سهل دين وحجروا هاين دول النمط إني قيب كسر القرآن مركي يجينا وحنا لها قاري وقف كليس ولامي إسكالسو استاج وحاسوي لما هذا وحش غيرنا معنا إني دول النمط ولي وحواي حلينا هاي ولا ليالو صار نقطة إسبارو إيش كنا معتي وحسبار شيء غيرنا المجرو دولة كونفور قلبت نمشى وحكي ممنوع معاوسلي وحلي يرادو صارت إني مقلنا على الرواء وح معاوسلي اللي يراد حال كان كمش غيناي وحلي يراد دراويش ما هنا وح كلو كش غيناي هبلت المجرى وين دراويش كش غيسا وين عيد ملتيري كش غيا وين بوليس كش غيا وح أنت سي أن هن وكش غيناي مجرى مركو حال الرواء إني كون توان waxaa maanta dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac geystay uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Yaqbari Weyne dagaalkaasi kadib ciidanka booliska gaarka ah ee Koonfur Galbeed ayaa gudaha u galay deegaanka Yaqbari Weyne ciidankaasi waxaa horkacayay wasiir ku-xigeenka amniga gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Yuusuf Maxamed gudoomiyaha degmada Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaahi gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee degmada Xuseen Maxamed Ceel Jooge taliyaha booliska iyo nabad sugidda degmada Walaweyn iyo taliyayaal ka socday ciidanka booliska gaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya howlgalkan ayaa waxaa ka warbixiyay wasiir ku-xigeenka amniga gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisa arrimaha siyaasadda gudoomiyaha degmada ayaa ugu horeyn ka warbixiyay dagaalka saaka dhacay waxa uu sheegay in ciidanka Koonfur Galbeed oo roonda ahaa weerar lagu soo qaaday ayna iska difaaceen waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam waxaan rabaa shacabka iyo dowladda Koonfur Galbeed iyo guud ahaan dowladda federaalka inaan ogeysiino sida caadada ahayd ciidamadii booliska gaarka ee dowladda Koonfur Galbeed ee fadhiyadoodii kala duwan ku sugnaa ay sameyn jiray sida normalka ah ciidamada inay sameeyaan petroleum ama gaafmeer ama rondo ayagoo ku jiro ciidanka booliska gaarka dowladda Koonfur Galbeed oo fadhiyadoodii jooga ayaa waxay soo weerareen maleeshiyaadkii ee aan in muddo ah wadnay in xalkooda la gaaro iyaga ayaa soo weeraray run ahaantii geesiyaasha dowladda Koonfur Galbeed ee booliska gaarka waxay sameeyeen iska caabin kaliya shacabka ku dhaqan gurdaan ilaa cagal hori aan gudoomiyaha u ah waxaan leeyahay marnana ma ogolin in la idin dhibaateeyo shar walba oo qofka sitaba inuu idin dhibaateeyo ma ogolin hadduu yahay mid dowladeed hadduu yahay mid maleeshiyaad ama mid argagixiso saddexdaba raali kama nihi waxaan har iyo habeen u taaganna difaaciina naf iyo maal meel walba uu joogo waxaan leenahay shacabka inay isdejiyaan ka warqabaan wax u khidmeynaya inay yihiin dowladdoodii diyaar u ah inay naf iyo maalba u horaan waxaan mar walba ku celcelinayaa inaanan shacab marnaba la dhibaateyn karin raallina aanan ka naqanaynin oo aan ku wargelinay saraakiisha iyo ciidankaba ay ogyiin sida ay maanta arkeenba reer Yaqbari Weyne
ciidanku si nabad ayay ku tageen si nabadna waa uga soo laabteen shacabkana waxaan leenahay waa mahadsantiin sida aan dowladdiina ugu hamuun qabteen farxadda iyo reereynta ku soo dhaweyseen waa idinkaga mahad celinaynaa mar walbana qulubteena idinla joogtay qolfoofteenana waa idin imaan doontaa waa idinla joogaynaa idinkama dheerin waa idinka warqabi doonaa biidnillaah waxaan leenahay marka maleeshiyaadkow mar walba waad hungoobaysaan wax danoo idinkugu jira malaha dowladdiina way gacan weyn tahay mar walba gacanaa idin fidsan dowladdiina u imaada wixii aad u baahan tihiin iyadaa idin siin karto marnaba idinma siin karo inaad duur joogtaan marnaba idinma siin karo inaad maalin kasta dowladdiina soo weerartaan guul iyo garab idinma naqanayso waxaa idin leenahay dowladdiina isu soo dhiyo waa idin baahan tahay marnaba idinkama maaranto shacabkeediyaa tihiin wiilasheediyaa tihiin dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda xuseen maxamed ceel jooge ayaa waxa uu sheegay in saakay ay si fiican u soo dhoweeyeen dadka deegaanka yaaqbari weyne waxauna tilmaamay in deegaanka yaaqbari weyne uu hoos tago dowladda koonfur galbeed soomaaliya amarkooda uu keliyana uu ka shaqayn doono saakii waxaan soo gaarnay deegaanka yaaqbari weyne ee gobolka shabeellada hoose waxaan rabaa halkan in war badan inaan galama rabo wasiirka maxamed yaro wasiirka ku-xigeenka amniga maxamed yaro iyo gudoomiyihii ayaa warkii inta badan soo koobay waxaan rabaa marka shacabka yaaqbari weyne inaan hal fariin halkan aan ugu diro shacabka waxaan u sheegayaa horta nin gurigiisa hor fadhiyo haddii la yiraahdo nin aqalkiisa hor fadhiyo haddii la yiraahdo gurigaada ma geli kartid horta waxa waaye waa shay qofka asikiliis iska dhaadhicinayo waayo dalkan waxa waaye federaal uu galay khaasatan waxaa ka jira dowlad goboleedyo badan annaga waxaan qayb ka nahnay dowladda goboleedyada oo koonfur galbeed halkan waxaa la yidhahdaa koonfur galbeed deegaanka yaaqbari weyne wuxuu hoos tagaa dowladda koonfur galbeed waxaa madaxweyne u ah cabdicasiis maxamed lafta gareen awaamirtiisa waxaan ahaynin oo ka shaqaynaya hawiraatee ma jiro qofka siyaasiga ah oo joogo xamar oo mukeefka ku jiro waxaan leenahay walaalow halkaada joog deegaankan ha dhibaateynin ka daa dhibaatada annaga waxaan leenahay fariinta kuwaad waxaan u diraynaa dadka siyaasiyiinta oo meeshaas joogo si kasta aad macnaha aad dadka isku dirdirtaan dhibaato mooye wax kale aad u keenaysaan hawiraatee ma jiro meeshan waxaa madaxweyne ka ah madaxweyne cabdicasiis asigaana awaamirtiisii la qaadanaa waxaan rabnaa marka dadka reer yaaqbari weyne waxaan rabnaa inaysan dadkaasi aysan warka dhegeysanin deegaankii aan ku sugunnahay wax dhibaato ah maanta haddii ay ka dareemeen annagaa qaldan dadkaas waxaabaa dadka shacabkeena waaye maanta si la yaqaanay noo soo dhaweeyeen waan kaga mahad celinaynaa waxaan rabnaa sidoo kale awaamirta dowladda khaasatan maamulka degmada waxaa yaaqbari waxay hoos timaadaa degmada weliba hoos timaadaa awaamirteedana si la yaqaan waa inay u qaataan dadka reer yaaqbari waxaan rabnaa marka wararka beenta ah oo meelaha laga sheegayo argada yaaqbari la duminayo suuqa yaaqbari la duminayo waxaas waa iska sheeko madaxweyne cabdicasiis maanta yaaqbari weyne waxa waaye inta badan waa iska jingado xudiyar u yahay inuu ka dhigsaro siyaasi hadda xamar iska joogana waxba uma qaban karo yaaqbari waxay u baahan tahay mashaariic kasta oo dowlad goboleedyada koonfur galbeed ka jiro deegaanada ay macnaha ay sida xaqa ay u helaan sidaas si la mid ah dowladda koonfur galbeed cabdicasiis maxamed lafta gareen inuu gaarsiiyo adeegyadaas ma laha hadda deegaanka yaaqbari weyne ma lahan masaajiyo ma laha isbitaalo ma lahan maxaa la dhahay goobaha waxbarashada intaba ma laha way ka liitaan waxaan rabnaa adeegyadaasi in la gaarsiiyo waxaa lagu gaarsiin karaa marka wada shaqayn waxaan rabnaa marka odayaasha aniga sida aan wanaagga aan u aqaano oo ku sugan deegaanka yaaqbari weyne inay ka shaqeeyaan nabadii ay ka shaqayn jireen annagana ka dowlad ahaan waxaan joognaa deegaanka yaaqbari weyne waxaan diyaar u nahay inaan la shaqayno waxaan rabnaa marka inaysan dadka kala ku hareeraysan ee beenta u sheegaya warkaas dambe waxaas way isku soo dhamaadeen inaysan macnaha wararkaas aysan dhegeysanin waxaan rabaa marka shacabka reer yaaqbari weyne deegaankiina waa idin nabad annaga wax inaan idinku soo kordhino oo macnaha maxaan leeyahay horumar mooye wax macnaha wax u dhimaya deegaankaasi lagama yaabo waxaan rabnaa dowladdiina gacmo furan sidii maanta aad ku soo dhaweyseen ina gacmo furan aad ku soo dhaweysaan ciyaalkeer yar walaalahii markii la soo magacaabay 4 saac waxa waaye fariina u diray waana isla hadleen waxay garan waayeen dowladnimada inay qayb ka soo noqdaan marka iyagana waxaan leeyahay
qori oo qof kaligiisa oo laami iskala soo istaago waxaas way dhamaadeen wax shaqeynayna maan inay dowladnimada weli waxa waaye waxaan leenahay walaalayaalow soo noqdo isbaaro waa isku dhamaatay waxa isbaaro sii shaqeynayna ma jiro dowladda koonfur galbeed meeshan waxay ka mamnuucday macawisle wax la yiraahdo taas horta inay maqlaan la rabaa wax macawisle la yiraahdo halkan kama shaqeynayo waxa la yiraahdo daraawiish maahin wax kale oo ka shaqeynayo habeelata ma jiro waa inay daraawiish ka shaqeysaa waa inay ciidan military ka shaqeeyaa waa in booliis ka shaqeeyaa wax intaas si aan ahayn oo ka shaqeynayo ma jiro marka waxaan rabaa inay ka waantowaan shacabkana waxaan rabnaa sidii maanta noo soo dhaweeyeen nabadda ay nagu soo dhaweeyeen anagana aan dowladnimada aan u dareensiinay sidaas si la mid ah anagana inaan ula shaqeyn iyagana ila shaqeyn wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaa u joognaa deegaanka Yaaqbar Weyne eeriyadiisa ciidamada booliiska gaarka ah ee koonfur galbeed oo saaka xilli hore ku jira rondooyinkooda iska caadiga ah ayaa nimankii dadka ku dhibay deegaankan Yaaqbar Weyne eeriyadiisa ciidankii soo weeraray xabad ku bilaabeen falilahi alxamdu ciidankuna waajibkoodii bay guteen deegaanka Yaaqbar Weyne iyo hareerihiisa waxaan ku soo marnay rondo luga alxamdulillahi rabbil caalamiin si ammaan ah oo qurux badan oo aad u wanaagsan dadka shacabka iyo bulshada dadka deegaanka ku dhaqana noo soo dhaweeyeen si qurux badanna waa lala dhaqmay ayagana waxaa leenahay wiilasha la qalday duurka galay duurka ka soo laabta dowladdiina way maada soo dhiiba waa la soo dhaweynaa waxaan idinka digaynaa laakiin falki saaka aad samaysano kale iyo falki aad bilihii la soo dhaafay dad ku hayseen inaad ka waantowdaan حتى وحان بيكسن دونا أو نكهر دونين كوا حاجة أنت موتوين قطان باورت أو قلا مالها اللوقا أو براولين تدبات هي كما هار دون أنت عنا عن حكمنا يكون فرق البلد كترش كما أقبل الدون قف إسباريستا أما قف مسافرة أو وضع اسمرا صوماليات اللي قد دبات هي كما أقبل الدون هدي لايرة وأنا دارني كتاب أمرني كتاب كان أمرني إلهي ذكي وكذا بين دون إن شاء الله qof kasto isbaaro ku fikrayo waxaan leenahay ka waantooba waqti baad haysataan fursad baa hore leedin siiyay haddana mid kale aad haysataan ninka ka faa'iideysan waa fursadaas sharciga la horkeeni doona weli muddo kooban aan sharciga lagu horkeeni doona ha isdhihin waa laga haray wallahi laga hari doona waan dhaartay waa ku fikrin meel kasto oo gasho waa kaaga daba imaanayna guri kasto oo gasho waan soo galayna geed kasto ku dhumatana waa ka soo bixin doona Yaaqbar Weyne runtii dad shacaba oo wanaagsan oo aad u fiican oo qurux badan oo aan saakaba soo aragnay oo si wanaagsan loo soo dhaweeyaa degan waxaan leenahay walaalayaalow deegaankaas quruxda badan ee koraya ee wanaagsan ayuu ardaala oo qori dab watay inuu idinka dumin ayuu ardaala oo qori dab la orday deegaankaas inuu idinka duminin deegaanka dadka deegaanka waa inay nooleystaan waa inayna iska ilaaliyaan isbaaraysi inuu soo dhexgelin iyo shabaab annaga isbaaraysi shabaab wala dirayna deegaanka Yaaqbar Weyne kama rabno isbaaraysi iyo shabaab inay dhex deganaan kama rabno iyo deegaanada la midka deegaan kaligiis ma shacabkana waa uga diina shacabkuna hays dajiyaan dowladoodii baa u timid wax mushkiliye ma jirto wax dhibaatooyin ma jiraan qof shacaba oo la dhibaateyn karaana ma jiraan mana la dhibaateyn doono bal waa la ilaalinaa sharaftiisa iyo sumcadiisa iyo maalkiisa inta waa la ilaalinaa aad iyo aad u maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh